jaadka markaan cunay saaxiibkaygiyow naag guurso qof weyn aad tahay haddii la yiraahdo ninkaas waa u jiibinaa hadalka waa u jiibinaa markii sheekada ay dhamaateen maalin dambe isla fadhiisan meel asoo u fadhiyo ma fadhiisaane waa ku wareegaa saaxiib leo maanta jaad fiicnaa haysana linkii yiraahdo saaxiibkayga ahay mooy naag guurso iyo wax meel dhigo iyo Salaad Xasan Nuur isagoo da'yara ayuu qaatay go'aano qaldan oo habsaamiyay waqtigiisii dhalinyarnimada wuxuu waalidkiis walaalihiis iyo eheladiisii uu la noolaa ka doortay daroogo iyo inuu darbiyada ku hoydo markii uu qaatay go'aankii ugu fiicnaa noloshiisa ee ahaa inuu qaadka iska joojiyo waxa uu guda galay halgan nololeed iyo inuu shaqo ka bilaabo halkii uu muddada dheer ku dacdaraysnaa iyana soomtii ilaa 2000 ayuu darbigan salaad sida hadda anigu aan u hurday uu u seexan jiray habeenkii laakiin salaad waxaan idhi bal tusaale yar ka bixi qaabkaad u seexan jirtay isagoo hadda waa ku dhiiran waayay noloshiisa taas hadda ka sarreysa anigu laakiin tusaalaan idin siinayay salaad haye qaabkaad anigu aan u jiifay meeshaan u seexan jirtay intaan jiifay jiray jaadka markaan dhamaysto meeshaan jiifay haye makasta haye alxamdulillah ma sha Allah haye meesha hadda aad ku ganacsatid ee horumarka aad ku gaartay darbiga aan jiifay darbiga soo horjeedaan ku ganacsada hadda ku ganacsata ma sha Allah waa hadda haye ilaahay ma hadiiso haye alxamdulillah anta jaal cunaysan ka waran dhaxanta marka dhaxan waxa ma dareemin haye balowd baa jirka ma dareemin ha alxamdulillah ilaahay ma hadiiso ha mararna dad moogtahay dadbiga alkulistayaal iyo balaaya ma alkulistayaal ma bajiran adaab ahaaba ana meeshan dadka ayba waxay soo fargashay waxa uu ogmeelay meelahan daqaradan iyo tooyinkan gormo gaaray daqarka mootada waay mootada shilka mootada waay ku gashay hadda intaad shaqaysanaysaa intaan shaqay daraad u leeb waay okay alxamdulillah ilaahay ma diis nolosha darbiga marka iyo nolosha hadda aad ku jirtid bal adoo isbarbar dhigaya ka hor ma sha Allah wax isku dhow maan taas nolol hayaatul kalba nolol hayaatul kalba taas tol ma lahayn qaraabo ma lahayn waxaan lahay ma lahayn linkii jaad cunaya tolkayga ahay maanta jaad haddaad haysan aniga ma bisnaqaano linkii bac wata tolkayga ahay salaado dadka hadda balwada isticmaala maxaad mar labaad oo fariino u jeedinaysaa linkii jaad cunayo inuu iska dhaaf iyo balwad kasta balwad inuu iska dhaaf awron jaad faa'iido ma leh maanta waa ganacsade meherad farsamo kule degmada Xamarweyne iyo aabba korinaya 6 caruur ah oo ku jira heerarka kala duwan ee waxbarashada sidoo kale waxa uu dhistay intii uu qaadka iska daayay kadib guri sare oo weyn oo uu isagu milkiyadiisa leeyahay habeenkii 9 sano markii ahdaan jiiftay saan u jiiftay 12 saac aan ka kacay meesha jiifka oo maalinna galabnimaha waa bacay xaajiyalkaas oo xaq laga raacay bostaajida Xamarweyne oo Madiina tiyaan raacay gurigan galay toban bir meesha kuma soo bixnaan saan u jiifay toban bir markaan meesha ku jiray aan soo baxay intaan imaaday jaad maalintaas ay ugu dambeysay saan u joogay naagan guursaday alxamdulillah hadda 6 caruur ay joogta ma sha Allah dhulaan gatay mootadeedan gatay gurigan istay gurigan degan hadda mootan walaay gurigan ku tagaa ku soo labaa wax iga maqan jinna la iga maqan bis jinna hadii ilaahay nagay wax kale iga maqan male waa shakhsi fahamsan waxyeelada dhinacyada badan ee qaadku geysto oo ay ugu muhiimsan yihiin xagga caafimaadka dhaqaalaha iyo burburka qoysaska sidaas daraadeed ma aha qof noloshiisa kaliya ku waaniyay joojintiisa ee sidoo kale waxa uu talooyin siiyaa qaar ka mid ah saaxiibada uu garanaya ee weli isticmaala maandooriyahaas saameynta ugu daran ee qaadku waa tan dhimirka taasoo la xiriirta awoodiisa maandoorinta cunidda badan ee qaadku
waxay iyadu keeni kartaa mararka qaar waalid dhab ah sida ay dhaqaatiirtu sheegaan, waxaana la arkaa inta badan dalkeenna dad sidii ay u isticmaalayeen waa shay maadaama uu ka baabi'iyey wax walba oo ay haysteen noloshooda.